maanta magaalada Boorama ka dhacay wax lagu tilmaamay xil wareejin laakiin kontrabaan ahayd wasiirka arrimaha gudaha iyo ninkii hore halkan barasab ka ahaan jiray ay saqbad dhuumasho ku soo galeen tahriiba halkaasi hadallada ay ka yiraahdeen waxa kamid ahaa shaqaaqadii yar halkan ka dhacday hadda u fiirso shaqaaqadii yar halkan ka dhacday waxa dhaawaca 240 shaqaaqada yar 240 dhaawac ku tahay waxay doonayeen inay hal maxaan ku dhahdaa ay kun dhaawac noqoto taasi doonayeen shaqaaqada yar wax lagu tilmaamay meesha ka bixin xasuuq toos ah ka dhacay xasuuq toos ah wixii ka dhacay inay jirnaa gudaha tiktoker haddii cid lagu sheegayo xukuumadda aad matasho cid ka mid ka tahay ayaa wada tiktoker nin aanan tiktoker ahayn kuma jiro waa floog socdaba taas tiktokerka isaga waxa la nin waliba wuxuu ku yahay uu ku moodaa Cabdulla waxa la tiktoker xukuumaddiina ah halkan wax tiktoker la yiraahdo ay ma joogin waddanka Axmed Tir baa leeynay maxaa loo garab maraya in Axmed Tir buu ahaa ninkii isbitaalka intuu galay ka dhaawaca kaga daba tagay intii daweynaysa kaga daba tagay in Axmed Tir buu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore anigu ka faa'iideysanaya maanta fursadani waxaan tacsi tiraayeen la u dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay xasuuqii ka dhacay magaalada Boorama inta dhimatana Allah u naxariisto inta wali isbitaalada la jiiftana Ilaahay noo bogadhayo inta markaan ka imaado waxa maanta magaalada Boorama ka dhacay wax lagu tilmaamay xil wareejin laakiin kontrabaan ahayd wasiirka arrimaha gudaha iyo ninkii hore halkan barasab ka ahaan jiray ay saqbad dhuumasho ku soo galeen tahriiba halkaasi hadallada ay ka yiraahdeen waxa kamid ahaa shaqaaqadii yar halkan ka dhacday hadda u fiirso shaqaaqadii yar halkan ka dhacday waxa dhaawaca 240 shaqaaqada yar 240 dhaawac ku tahay waxay doonayeen inay hal maxaan ku dhahdaa ay kun dhaawac noqoto taasi doonayeen shaqaaqada yar wax lagu tilmaamay meesha ka bixin xasuuq toos ah ka dhacay xasuuq toos ah wixii ka dhacay inay iyaguna maanta inay halka soo istaagaan yiraahdaan shaqaaqada yar ba ka dhacday wasiirka arrimaha gudaha tiktoker haddii cid lagu sheegayo xukuumadda aad matasho cid ka mid ka tahay ayaa wada tiktoker nin aanan tiktoker ahayn kuma jiro waa floog socdaba taas tiktokerka isaga waxa la nin waliba wuxuu ku yahay uu ku moodaa Cabdulla waxa la tiktoker xukuumaddiina ah halkan wax tiktoker la yiraahdo ay ma joogin taasina taasaan ku dhaafay waxa dhacday waxa jira waxyaabo marka tan aad leedahay waa culays waxyaabo ka sii culus baad arkaysaa dadku malaha aad uma ay fiirsan waxa dhacay xasuuq maalmuhu socday inama yar yar oo wariyayaal ah oo Hargeysa jooga inanka waliba Sadiq Burman la yiraahdo ayaa soo dhigay shootaraa tooganay dadka eegada wuu ka xanuun kullu yahay xasuuqii dhacay irigaas laakiin markii dambe Sadiq Burman maadaama markii dambe uu yiri raali gelin ma ka bixinaya mar waay laakiin goor raali gelin ka bixiya waxa kale oo isna halkaas ku jiray oo ku taageeray inuu shootar dadka leeynay wax shootar ilaa ma jiro waddanka Axmed Tir baa leeynay maxaa loo garab maraya in Axmed Tir buu ahaa ninkii isbitaalka intuu galay ka dhaawaca kaga daba tagay intii daweynaysa kaga daba tagay in Axmed Tir buu ahaa marka waxaan leeyahay war saxaafadda Hargeysa waxaan leeyahay wanoo ka waantooba sidii yuhuudda u dhaqmaysa waxa sidii wanoo xagay waa sidee kuwa dhaqankii yuhuudda u saxaafaddii Hargeysa ay yeesheen wax shootar leeyahay oo halka yimday walaal ma jirin ninka intuu soo orday Hargeysa wali ma dhicin Soomaaliland inta aynu joogno maxaa ku taliye police ama taliye police ku xigeen meel wax mudaharaad ka dhacayo tagay ma jirin in Axmed Tir baa soo orday gadabursiga aqaanu waa soo xidhayaa uu soo orday kan yimid wajiga ka toogtay way kibreenay in Axmed Tir buu ahaa ninka lahaa in Axmed Tir ayuu ahaa ninka lahaa way kibreen gadabursiga wajiga ka toogtay waanu joogay isbitaalka anagoo dhaawac sideen soo galay ayuu kii dhaawacnaa iyo tii dheeysay labada ku wasiirka arrimaha gudaha wasiirka mataqaana caafimaadka oo Hargeysa ka hadlayay nin aan weligii arag ma arag baan ka magaciisa sheegay xitaa muuqiisa ma arag marka soo dhageystay wiil wasiirka caafimaadka oo muddo dadkii quradaha lagu korin jiray ayaa kule isbitaalka iyo waxa isku dhow saldhiga xabadda saldhiga ka dhacaysa ayay maqlayaan buka kala soo arko dhacay maanta qolay taliibay la socday isbitaalka booqdo ana arka xabadda ku taala ee bukaanka iyo doctorka ba dhaawacday waxa kale oo la yaab lahayd madaxweynaha ayaa yiri waxaan booqday yaa yiri wuxuu booqanayaa dhaawacii Hargeysa la geeyay booqashadaasi ma booqashada maqasho lahayd si digasho lahayd booqasho digasho lahayd waayo waxa la socday ninkii caruurta laayay la socday isagoo darajo xaban in Axmed Tir ciro waxba kama soo qaadin xasuuqana ka dhacay because cid ay u bedelay ma aragtay cid ka dambeysay xasuuqana u bedelay ma aragtay ma jirto horta fidmadan maxay ka dhacday in la isweydiiyo Soomaa dadku waxay moodayaan in buug la diidan yahay iyo xeer la diidan yahay war xeerka iyo buugga reer baalade lama diidan laakiin khariirad cusub oo sameeyay buugani ayaa jirtay khariirada weeye waxa loo dhintay lagana dhimanayo loona dagaalamayo ana dhacayna waa khariirada weeye khariirad cusub adduunyada maanta la abuuray
maanta wuxuu ku leeyahay bulxaar ka bilow ilaa iyo boon reer baale buu ka qoran buu ruux la isku sheegay soo ma madaxweynuhu uu yaraystay reerkan xaqiiqadan ku sheegaya wax dhibtu ka dhacday odayaashii markay weel wax ka dhacaan nabad ay doona waxa la meydkii u dambeeyay loo kala siisi ugaasku ahaa ninkii u dambeeyay cirigaba raacay warkiisu dhageysan waay wuxuu maqlay kuwa aanan dalka joogin oo dalka dibisa ka soo hadlay waraaqa looga soo habeen bu diyaarad raacay miyad ogtii habeen madow baxay Djibouti waraaqii Djibouti looga soo qaaday buu fulnay carruurta naga dhimatay shalay u dambeysay waxa baxay in wasiirkii madaxtooyada iyo taliyihii militariga halkan tagay ayaa la socda Soomaaliland la wada leeyahay laga rabaa imika dhalinyartii kacaysay waan la hadalnay annaga fadhiisinay waxayna sugayaan waxa weeye isku shaandhaynta oo sameynaya cirro ayaa laga war sugayaa taasaan laga go'aan qaadan doonaa haddii uu cirro sidii caadada ahayd oo 40 wasiir iyo 4 wasiir magacaabo waxa soo socday webiga yaa weyn ya waxyaabaha imika wuxuu sameeyay reference yar oo barasaaba muxuu ka bedelay maxaa soo kordhay wala soo kordhay sheekada waa halkii hore u soo ma waxaan hadda leeyahay warniyow anagu dad baan nahay dad mataqaanaa dad wax la waan nahay warnu beesha saaq ma eedeynayo beesha saaq horta ma eedeynayo laakiin ninkan hadda xukunka haya iyo reerkiisa eedeynaya waayo waxaan markaad aad u eegay waxaan siinay 4 kii martay waqtigii in ciyaar ay soo wareegay gadxajis tabta tiib arsi halkii waxa nin baa igu yiri adeero maalintayn fuulo ayaa nigu arsan doonaa 4 kii saad loo gashay war 4 kii Soomaaliland baa la badbaadinayay mareeb leedini Soomaaliland baa la badbaadinayay maanta taa madaxweyne ma hadii maalinta dana lagu badbaadinay madaxweynuhu hala ma ahadin waxa eeg dhibaatada wada waxaan ku leeyahay gadxajis u gaarsiiyay waxaan ku leeyahay muxuu yahay oday la sheegayo soldaan maxaa magaciisa muxuu ahay soo gaaray muxuu ahaa good ma oday good la yiraahdaa ma ina Axmed Tirba ma kii madaxweynaha saddex go'aan gaadhayba maalintii jimcihii xasuuq socday deynada aragtay waan hadlay iyadoo saaxabad u dhacayso sadishkan loo dhacay halka ka hadlo waxaan idhi war go'aankii saddexaad buu soo saari doonaa go'aankii saddexaad ayuu imka soo saari doonaa ballan male aamin male laakiin wuxuu inagula too dhaqaaqo inoo la yimaado kaliya lagu dhaqmaya taasaan idin sheegaya nimankana waxaan leeyahay war digashada horta ee kibirka iyo isqaadqaadku inuu ku jabiyo mooyane guul laguma gaaro miis kasta oo lagaga hadlayo talada Soomaaliland haddii aan ka maqnaano Soomaaliland anagu kamid ma ahaanin haddii imka xasuuqa intaa leega dhacay lagu sheegay shaqo yaro dhacday ilaa imka hadalka imka waxba ku cinaya xalay u dambeysaan la hadlaynaa anagu carruurta wallahi noo jooga magaaladeena faraha la gelina haddana haddii lagu qodqodo oo weli qodqodka la sii wado waxa kaloo jira inama ka soo jeeda anaga waxyaabaha la yaab kale eegada haddii bilaada ka xishoodo inuu Ilaahay ka xishooday waxay socotay muddo 4 bilood ku dhow ayay hawshan socotay in run ahaantii 3 bilood bay soo ka soo qaad way joogeen laba yaro inama imka kan orda wax xildhibaana way joogeen maalin kama yahadan maalintii dambeysay nimankii Hargeysa u shaqaalaha ka ahaa ee halka yimaadeen oo deesha wax u sheeg kar laayeen 8 cisho la isla meeraysanay ay bixeen markii Hargeysa tirada nafta kala gashay inagoo inta ka yariyo maxay odayaasha ugu hanjabay maalintii ka dambeysay mid hadlay midka kale wada arkay maalinta xal suuq soo dhib Hargeysa ka hadlay isagoo orday inoo yimiday halka soo istaagay buu yiri ciidankana waa la saaraya madaxweynuhu uu hadlaya yaa soo sheegay madaxweynuhu hadlay in ciidan la saaraya soo sheegay isagoo madaxweynuhu ka taliya madaxweynuhu la taliya xildhibaan buu aan dooranay inaga inuu maqan yahay moodaysan inaga inagu maqan yihiin daawaca iyo dhimashada iyo xasuuqa dhacay maanta la dilaalayaan warnimadana waxaan leeyahay warnuu sanaan ku kala qurux badan aan kala joogno abaadkan iyo calaacalkan iyo bacdan in kala soo gashay warninkan qeyrqeyliye madaxweynaha hadlaya in lahay hal maalin ma yiri laguma qaban karo khariiradu cusub weeyaan horta ma ka hadlayba kama hadal waran ma adeerayaan kaana waxaan leeyahay nimankaana warnu ma ana ku nugu dhaxlimeynaa shaqadii hadii waxa la yiri tii hore haday fashilantay tii hore dilaalka lagu soo qaatay ahayd in halkan dad akhrido cusub lagu tala galay lagu qabta lagu calaamadinayo ahayd haday fashilan jihee ummadan jihee oo kale u jihee nimankan qadaraas cusub ay soo qaatay inaad marninka taa dhaawaca iyo taa dhimatay dilaalaya inaga qulina gelinayaan nimadana waxaan leeyahay war waa li weyn naga xishooda midda kale
waxay sheegeen in ay sagaal toban baa dhimasho ah 240 waa dhaawac waa shaqaqada yarada wax 9 dhimashada iyo dhaawac intay tahay waanu haynaa wax la qarqari kariyo wax kan yari kana yar iyo kana weyn leeyahay maaha abti maaha adduunyadu tii hore maaha tii wax la qarqarin jiray maanta ma joogno ala kow baanu haynaa waxay haydna waa la soo bandhigi doonaa waa taala loo sameyn doonaa ragaas waa la xusi doonaa taariikhdan xusi doonta waxay u dhinteen dhabtaas oo haanaya sidiisaas oo haanaya midna ka qalacsanayso maanta magaalada Boorama ka dhacay wax lagu tilmaamay xil wareejin laakiin kontrabaan ahayd wasiirka arrimaha gudaha iyo ninkii hore halkan barasab ka ahaan jiray ay saqbad dhuumasho ku soo galeen tahriiba halkaasi hadallada ay ka yiraahdeen waxa kamid ahaa shaqaaqadii yar halkan ka dhacday hadoo fiirso shaqaaqadii yar halkan ka dhacday waxa dhaawaca 240 shaqaaqadii yar 240 dhaawac ku tahay waxay doonayeen inay hal maxaan ku dhahdaa ay kun dhaawac noqoto taasi doonayeen shaqaaqada yar wax lagu tilmaamay meesha ka bixin xasuuq toos ah ka dhacay xasuuq toos ah wixii ka dhacay inay jirnaa gudaha tiktoker hadii cid lagu sheegayo xukuumadda aad matisho cid ka mid ka tahay ayaa wada tiktoker nin aan tiktokerayn kuma jiro waa vlog socdaba taas tiktokerka isaga waxa la nin waliba wuxuu ku yahay uu ku moodaa Cabdulla waxa la tiktoker xukuumaddiina ah halkan wax tiktoker la yiraahdo ay ma joogin waddanka Ilaahay Ahmed Tir baa leeynay waxa loo garab maraya in Ahmed Tir buu ninkii isbitaalka intuu galay ka dhaawaca ka daba tagay